qiso jacayl oo xanuun badan oo ka dhacday dalka Sweden. Hadda maahan qisadan aniga mid la ii sheegay ama mid dadkii aan qof kale ka maqlay midna maahan. Laakiin waa qiso aniga meel aan ka shaqeeyo ka dhacday. Waa qiso labada qof ee arrintaas ay qabsatay aan aqaano. Waa wiil iyo gabar aniga aan aqaano oo muslimiin ah, qiso ku dhacday oo ilaa ay hadda ay jawaab u laayihiin arrimaheeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiib, hadduu muuqaalkan ku soo gaaro, like saar, komadi ka bixi, talaabadu waa muhiim. Qisadan waa qiso jacayl, waa xanuun, waa dhibaato aniga kaaga sheekay doona. Dhageyso, ha degdegin, dhammayso ilaa iyo sheekada macaanteeda. Magacaygu waa Cabdirasaaq. Janaalkan aniga ayaa iskale, Soomaalina waa ila leedahay oo waa kuwa haween iyo maalin subscribe-ka ii saara, isha fiirsada, ila sheekeeya. Waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol adduunka meel walba ka joogtaan. Laakiin maanta qisada aan hayo waxay ka dhacday shirkad aniga aan ka shaqeeyo. Waxaa ila shaqeeya dad badan oo ajaanib ah. Dadkaas ajaanibta oo ila shaqeeya waxaa ka mid ah wiil iyo gabar u dhashay dalka Suuriya. Labadooda isku magaalay ka yimaadeen, laakiin laba xaafaday kala deganaayeen. Labadooda gabadha ayaa weyn 1 sano. Gabadhu waa 27 jir, wiilkana waa 26 jir. Suuriyaan ah. Wiilka gabadha wuu jecel yahay. Wiilka weligiis hore uma soo guursanin. Muddii labadooda ka shaqeynayeen, anigana 3 asbuuc ayaan la shaqeynayaa oo qaybtooda la ii soo wareejiyay. Qaybaha kale waxaa jira dad aan ka shaqeey jiray aniga. Laakiin qaybtooda muddo 3 asbuuc ayaan ka shaqeynayaa. Wiilka si fiican ayaan isku naqaan markii hore. Kaas ka naqaan, laakiin markaan ka shaqeynay ayaan si fiican isku baranay. Hadda wiilka weligiis ma guursanin. Wuxuu rabaa inuu guursado. Gabadhana iyo asaga way sheekaystaan. Gabadha habeenkii maray shaqeysaa, asaga habeenkii maruu shaqeeyaa. Laakiin inta badan shaqada ayaan kala wareegsanaa, aniga asaga iyo ayada iyo gabar kale. Isku meel aan ka shaqeynaa, 2 maray soo galaan, 2na maray baxaan. Matala anaga saakay oo kale shaqada waxaan bilownay 5tii subaxnimo, ayagana 5tii subaxnimo ka baxayeen. Saas ay tahay markii la tagaayo kalama tagaan labadooda ee meel bay fadhiistaan. 1 saac oo kaamil ah arrimahooday ka hadlaan. Laakiin waxaa la yaabaa marka wiilkii ii sheekeeyay oo arrinta ii sheegay, waxaan dhaniyo gabadhan guurso. Adiga guur u baahan tahay, xaas u baahan tahay, kaligaa degan tahay. Wadankan aabi hooyo kuma joogaan, ehel kuma joogo. Gabadhan haddii ehelkeed intu joogaan, doono guurso. 2 qof oo muslim tihiin, gabadhan waa artay u xijaaban tahay. Maasha Allah, xijaabkeeda, dharkeeda way qurxoon yahay. Ma guursatid, maxaa kaa celinaa, kaa hortaagananahay. Laakiin la yaabka aniga haysto wuxuu yiri gabadhan horey ayaa loo soo guursaday. Okay. Horey ayaa loo soo guursaday. Wada igama yeelayaan naag hore loo soo guursaday inaan guursado. Waa arrinta aniga fajacsida igu riday oo aan la yaabay oo aan dhahay waa weydiiday waxaan dhahay muslim soo ma tiidaan dhahay muslim ahay. Waxaan dhahay Allah mas'aasa nabigaba Khadiijo ka weyn oo ayuu guursaday garoob ay ahayd. Maxaa adigu muslim ay maxaa ka qaldan dhahay gabar inaa muslimad ah. Waa ogahay, laakiin dhaqanka Suuriya yaala dhaqanka ma islahan dhahay. Adinkiistiin adiga waxaa laga yaabaa wadankiina gabar garoob guurstaan. Sax waa guursanaa gabdhaha garoobka anaga. Soomaalidu ilaa dad badan ka fiican tahay. Waa la yaabaa aniga. Waxaan weydiiyay warniyow ku diid inaad guursatid gabadhan garoobka ah. Wuxuu yiri gabadhan 2 qodob ani ma diriyo dhahay, laakiin waalidkeyga anigu waa jeclahay, waan u baahanahay. Laakiin jaceylkeyga waxa ka weyn waalidkeyga rabitaankiisa. Anaka haddii aan carabnahay xoolo badan kala qaadanaa, waxyaalo badan la sameeyaa. Saasay tahay markaa iraahdo ani gabadhan aabo
يعني هذا كهر على سوق قرشدي أبيه إسكنا حتى هويدي بيلي سوداي يعني قطي وح يآد وأدك وح إلى نقطة وح ليابلي يعني ضد المسلمين أو دين تيقانا ويلك ما شاء الله لكن كبدا وجعل هاي حاران كمرهبو حتى عمر وانايو حقا سكولو كفريسنا إنو قرصدو ربا لكن waxa ka hortaagan qodobka ka hortaagan waxa waaye yani wuxuu waxa hortaagan ilma adeeraday aabahay hooyaday kulli waalidiinteeda ma ogolaanayaan in aan guursado gabar garooba gabadhii wuu jecel yahay sidoo ku heli lahayna ma yaqaano gabadhii way rabtaa wiilkan gabadhii waxay soo martay nin kale aroos hore u soo gashay way soo kala tageen wadankoodii inta joogeen halkaana qax lagu yimid halkaana la isku bartay in la isguursadaa la rabaa laakiin qodobka hortaagan oo dhibaatada iyo murugada ku heeda wiilka waxa waaye gabadhan waa garoob waalidkiisna kama ogolaanayo inuu guursado bal maxaad uga tali lahayd arrinta noocaas u dhacday markaad aragto dhaqankeena maalin walba gabdhahan intii la furo haddana nin kale si guursanayo haddana soo furaayo haddana nin kale guursanayo haddana soo furaayo waa dhibaato weyn anagana haysataa mise annaga ka fiican dadkaano way naga dhaqan xun yihiin dadkan bal kumadigu nagula wadaag ra'yigaaga waxaa aniga la yaabanahay oo ilaa hadda maskaxday gelila laba qofood oo isjecel oo dunida maanta dadka jooga iska jecel oo indhaha isku doogsanaya oo intay wada fadhiista halkaas sheekaysanaya oo lacag haysta oo shaqaysta haddana dhaqanka kale hortaagan uu yahay gabadhan waa garoob yacni farqiga u dhexeeyo gabadhan waa garoob bis asiga ku kalaasaya garoobnimadeeda hadduu asaga rabi lahayn garoobnimada waxaan ilaa waxaa la sheekaysanaysaa haddaad u rabin asaga wuu rabaa gabadhan garoobnimadeeda wuu ku rabaa inuu guursadona wuu rabaa laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay familiga iyo backcomka dambe gadaali arrinta ka taagan tahay dadka ka dambeeya oo ku jira aabihiis hooyadiis ilma adeeradiis abtiyaashii waxaa la yaabaa abtiyaal xataa guurkaa qeybay ku leeyihiin abtiyaal adeero ilma adeero intaasba way jarayaan ninkan hadduu gabadha garoobka guursado bal anakana gabarey adigoo taagan dadkeenioo taagtaaganaa nin raacdaa maalin walba alow soo furaa adoo caloosha kuu buuxsan tahay maxaa khaldan anigu waxaan fahmi lahay soomaalidu intay laayihiin nin caddaanay guursanaysaa intaas sano soo qaba oo soo furaa wiil soomaaliya waanaaba guursanaa nin kaloo ajnabi ah ku guursanaya intaasuu qabaa oo soo furaa nin kaloo soomaaliya guursanaya annaka dhibaato naguma aha waxaasba laakiin dadka carabta ah ninkan gabadhaa maanta indhihiisa wuu ka jecel yahay siduu ii sheegay laakiin waxaa hortaagan inay gabadhan garoob tahay ha iloowin taas bal ra'yigaaga nagula wadaag komadiga wixii tale ee ninkaas u gudbi lahaa iisoo sheeg bal maxay kuula muuqataa adiga ra'yigaaga oo nadiif ah iyadoo cay lahayn fadlan waa codsitan komadiga ugula wadaag wixii ra'yigaaga komadiga ugula wadaag insha allah maca salaamo